حدود كانوا تكرغبوها إنك هو حزبية الزوجة للشعب. قلبنا حالتي سيما كان دوان كولا Somaliland ayaa gashay xaalad doorasho inta badan dhalinyarada ku dhaqan dalka iyo dalka dibadiisaba ayaa aaminsan in haddii xisbiga wadani uu ku guuleysto doorashada soo socota ee madaxtinimo uu noqon doono mid u dabacsan wax ka qabashada caqabadaha siyaasadeed ee dalka ka jira marka loo eego xisbiga talada haya ee kulmiye oo ku guuldareystay inuu wax ka qabto arrimaha ugu adag ee maanta qaranka horyaal waa colaadda gobolka Sool. buug siyaasadeedka xisbiga wadani ayaa dad badan iyo daneeyaasha siyaasadda Somaliland u arkaan mid lagu qanco dhinaca kale beelaha harti ee dega Somaliland ayaa aaminsan in doorashada musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ay furayso wada hadal iyo wada noolaansho gaar ahaan arrinta Abdulrahmaan ay xukuumadda talada haysa ku guuldareysatay inay xalliso dadka siyaasadda falanqeeya waxay aaminsan yihiin in guusha madaxweynenimada Somaliland ee wadani ay furo u tahay nabadda guud ee geeska Afrika. haddaba waa kuma musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee la rajaynayo inuu hogaamiyo 5 sano ee soo socda dalka Jamhuuriyadda Somaliland. musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Irro waa dowlamaasi aqoon sare leh oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradii arrimaha dibadda ee xukuumaddii hore ee Soomaaliya burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991 kadib Irro waxa uu ka qayb qaatay dib u dhiskii ganacsiga iyo siyaasadda Jamhuuriyadda Somaliland. Irro wuxuu ahaa siyaasigii ugu horreeyay ee dhidibada u taagay nidaamka xisbiyada badan ee Jamhuuriyadda Somaliland sanadkii 2002 kadibna waxa uu noqday xildhibaankii ugu horreeyay ee ay shacabku doorteen sanadkii 2005 isagoo oo noqday xildhibaankii ugu codka badnaa gobolka Saaxil. Irro waxa uu ku guuleystay inuu hogaamiyo golihii wakiilada ee ugu horreeyay ee ku soo fadhiista golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland cod shacab ah waxaanu noqday gudoomiyihii ugu muddada dheeraa golaha wakiilada Somaliland waxaanu soo xukumayay golahaas muddo 12 sannadood ah. Cabdiraxmaan Irro waa aasaasigii xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Somaliland sanadkii 2012 aana musharaxa madaxweynaha.